maamulka magaalada Qabri Dahar ee sanad miisaaniyadeedka 2016 oo dhan 438 milyan 120,435.74 bir ayaa lagu qabtay magaaladaasi. Faalumurtaas ku saabsan sudeegii wariyahayga Bashir Cabbaas. kulan lagu shaacinayay miisaaniyadda maamulka magaalada Qabri Dahar ee sanad miisaaniyadeedka 2016 ee tirsiga dalka oo dhan 438 milyan 120,435.74 bir ayaa ka qabsoomay madasha kulamada ee maamulka magaalada Qabri Dahar. kulankan shaacinta miisaaniyadda ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan ee ku dhaqan maamulka magaalada ee sida odayaasha waxgaradka dhalinyarada culimadiinka haweenka iyo sidoo kale mas'uuliyiinta maamulka magaalada Qabri Dahar. kulankan oo ujeedadiisu ay sida bulshada qaybaheeda kala duwan loogu shaacin lahaa miisaaniyadda ay dawladdu ugu tala gashay sanad miisaaniyadeedka 2016 tirsiga dalkaasi markaasi ay ugula xisaabtamaan maamulka magaalada Qabri Dahar halka ay ku bixiyaan miisaaniyadda cusub. ugu horeyn madaxa xafiiska maaliyadda ee maamulka magaalada Qabri Dahar mudane Khalid Cabdiraxmaan Maxamed oo halkaasi kula hadlay shacabka ayaa faahfaahin dheeraad ah ka bixiyay miisaaniyadda cusub ee sanadka cusub loo qabtay maamulka magaalada Qabri Dahar waxaana sheegay waxyaabaha xoogga lagu saari doono. si guud miisaaniyadda markii la leeyahay miisaaniyadda laba sektor oo weyn baa loo kala waxay miisaaniyadda caadiga oo mushaar iyo howlgelin noqonaysa iyo miisaaniyadda mashaariicaha horumarineed lagu qaban. miisaaniyadda caadiga markaa waxa weeye waxa ugu waxaa la yidhahdaa mushaar shaqaalaha magaalada Qabri Dahar sanadka dambe ku sii kordhaya sanadka wasila 1,500 oo qof oo shaqaalaha ay gaarayaan lagu wadaa. marka miisaaniyadda sanadka shaqaalaha magaalada waxaa loo qorsheeyay 139 milyan 99,375 oo mushaar in magaalada shaqaalaheeda la geliyo. si kale markii loo dhigana in 139 milyan xaafadaha magaalada qoysaska magaalada si dadba u gasho. marka lacag 139 loo qorsheeyay sanadka waxaa yidhahdaa bulshada mobilisha waxyaabaha lagu dhaqaaqeeyo shirarka stationariga bedel waxyaabaha noocaas dhaqaaqa miisaaniyadda mishiinku waa shaqooyinka bulshada korsiga yidhahdaa 30 milyan oo miisaaniyadda guuska noqonaysa ilaa 5%. intaa marka mushaarka warbinta marka la soo qabto ayaa la yidhahdaa miisaaniyadda caadiga ee mushaarka warbinta. tan saddexaad waa miisaaniyadda mashaariicda la yidhahda mashaariicaha horumarineed lagu qabanayo 239 milyan 1,000,000 oo miisaaniyadda guuska noqonaysa 64% ayaa loogu talagalay mashaariicaha horumarineed magaalada lagu qabto. dhinaca kale qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan maamulka magaalada Qabri Dahar oo warbaahinta la hadlay ayaa si weyn u soo dhaweeyay shaacinta miisaaniyadda sanadka cusub waxayna cadeeyeen isla markaasina sheegeen inay lagama maarmaan tahay in bulshada lala socodsiiyo cadadka miisaaniyadda ay qoonto ahaan dawladdu ugu tala gashay sanadka cusub ee 2016 tirsiga dalka. waxaana hadaladoodii ka mid ah waxaa la sheegay 255 milyan oo dakhliga inta laga rabo taasina ay ka qayb qaadanayso horumarkeena hadday mashaariic tahay hadday shaqaalayn tahay iyo haddii waxqabadkii maamulka magaalada ay tahay. waxaan ognahay inaan hadda ka hor ka calaacalaynay 95 milyan oo aan lahayn waa soo saari laana way saddex jibaarantay. taa marka waxaan ku kala bixinayaa koow marka ugu horeysa magaalada ayaa gacanta ku haya waxaa gacanta ku haya gudoomiyaasha qoleyaasha iyo maamulka qoleyaasha xaafada u qaybsan tahay magaaladu xaafadaha loo qeybiyey waxaa gacanta ku haya maamulka qoleyaasha. waxaan dhihi lahaa bahorta iyaga ha lagu bilaabo dhiirigelin iyo sidii ay dakhliga u soo saari lahaayeen xaafada bar lagula xisaabtami lahaa. Bashir Cabbaas Cali warbaahinta deegaanka Soomaalida SRTV maamulka magaalada Qabri Dahar. gudoomiyaha degmada Imay Galbeed oo SRTV la hadlay ayaa sheegay in loo baahan yahay in looga faa'iideeyo shacabka degmada layrka 24 saacadood ee aada magaalada Goday kaas oo sii dhex mara degmada Imay Galbeed. 10 qabalo oo kamid ah degmada Imay Galbeed waxaa mara webiga Shabeelle